soocan lagu noqday. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أو وناكسن دمان صاحبة قالقة هاي وملك السؤال نقد دعوانا إنسان عالم كويدل وبرامج كيني عيارها وعلى بيدن كجي يمان جري تلفزيون قرن كصومالية حرونته وكل هاي مقالة لندن برامج كان عيارها أيان آلا وحن كويجنا ورئيسي كل دوان أن لا يلنا بهوينت سبورتيجا هدين قلنا هاين مسؤولين أم عيارتو انتبه عوا وحا برامج كان مرتيجوه إنجنير بانا عبد الله علي وهري أسوء هانجري حقيقي حريرك كوبدا كوليجا سوماليات مرنا أها قدومي كحقينك حريرك كوبدا كوليجا سوماليات بانا هذا وحكتر سنة هاي فيفا أفريقيا سوا أقابل سن حقا سوق جينتا مصر بانا مركو وهري سكسو دو تلفزيون قرن كسوماليات حرونتي سمقالة لندن. بسم الله الرحمن الرحيم. ويش مركور وكم هسنت هاي إن عاود فرصة إيسيسي مرلبات إن أنا كعادة قبل قالوا برنامج كعيارها وأنا كم هسنتها. أنا أضو مهتسن وحنقصون هاي إن تهاي نين إن درجة رمتي أقوي هندا الصوماليات كجرو إن أدنى أفر فرعون سيد نقصون هاي. بالواحد نقول رنتا إن سيابه يجورتي أد حرير كوبدا كوليجا الصوماليات أد قيب كنقطي حلال ككل دوان أنا هرأ أصول شيء جاي lagu magacaabay isaabihii ay ku imaateen lagu magacaabo xiriirkaasi runtii haddaan dib ugu noqdo markii ugu horeysay oo aan soo galay intaan xiriirka soo galay marka hore aniga iyo Cumar Allah u naxariisto Cumar Ayaanlo ayaa waxaan geynay ciyaartooy aan isku soo aruurinay Mareykanka iyo Ingiriiska ayagoo matalaya magaca calanka Soomaaliya ciyaarihii macnaha ka dhacayay Kenya magaalada Nairobi ciyaaraha soo ahaayeen under 21ka ani markaa waxaan ahaa macallin ku xigeen Cumarna wuxuu ahaa Allah u naxariisto kooxdii markaa macallin ku ahaa markaas ayaa macnaha igu horeysay oo aan macnaha inaan isku dayo inaan macnaha la shaqeeyo baaweynta kubadda koleyga kadib ciyaarihii markii xaggaas ka dhaceen kadib ayaa waxaa dhacday in waxaan noo ahaa marka head of delegation Doran Farax iyo Tarzan Maxamuud Tarzan oo markaa asiga ahaa gudoomiye ku xigeen kadib waxaan go'aan ku gaarnay in aan la shaqeyno xiriirka kubadda koleyga saas kadib waxay igu soo magacaabay madax bannaan aniga Cumar Allah u naxariisto markaa ciyaarto macallin ku xigeen ahaa kadib inaan markaa la shaqeyno xiriirka ayaan runtii shaqada markaa u qabanay aad ay macnaha ugu farxeen oo runtii shakhsiyaad dibadda joogo oo shaqadii markaa waddanka ahaa markaa waxay u arkeen in aan waddanka markaa u faa'iideyn karno taas macnaha markaa waxay dhalisay in Cumar Ayaal markaa asigana loo magacaabo macallinkii kubadda koleyga wiilasha aniga markaa inay ii magacaabeen gudoomiye ku-xigeenka kubadda koleyga oo markaas ahaa Maxamuud Tarzan kadib haa asaga ka tanaasulay xilkii mise waa laga qaaday waxaa jiray gudoomiye ku-xigeenno badan kadib markaa waxay aniga markaa ay ugu dareen inaan ka mid noqdo gudoomiye ku-xigeenada oo markaa ay iisii raacisay taqatilkayga inuu ahaa ama job descriptionkayga qaybta horumarinta sportiga Masar Baana waxaan ogsoonahay in aad su-aasheeda kale haddii aan sii dabagalo waxaan ogsoonahay ana ogsoon in aad tahay nin kusoo barbaaray sporti maadaama aad ku dhalatay kuna soo barbaartay xaafadda Kaama Maxaare ee degmada Cabdilcasiis oo runtii degmadaas dad badan oo magac iyo sumcad dalka Soomaaliya ku leh ay ka soo baxeen horay sportiga ma qayb baad uga ahaan jirtay ciyaartooy ma kamid ahayd ciyaarihii iyo naadiyada baad soo gashay mise waxaad kamid ahayd dadka dhalinyarada ah sportiga mar walba xiiseeya wiish horta warta waxaan kusoo barbaaray degmada Cabdilcasiis ka horna waxaan degnaa degmada Xamar Jajab oo labada macnaha ah laba degmo oo runtii kubadda koleyga aad u qiimeysa oo dad ciyaartooy badan macnaha ay ka soo baxeen runtii degmadan waxaa ku yaalay garoonka weynaa Lugino runtii ciyaarta aad ayaan u xiiseyn jiray markaan yaraa kadibna waxaan nasiib u helay inaan maaragtay noqdo ciyaartoydii markaa matalaysay macnaha degmada Cabdilcasiis kubadda koleyga
waxaa markaa u saftay markii u wareysay ciyaaraha degmooyinka waxay ahaayeen 1986ka kahor waxaa ka horeeyey marka aan ciyaaray ciyaarihii ciidamada deegaanka xamar oo markaan gurmudka ahaa laakiin inaan degmada u ciyaar waxay ugu horeysay 1986 oo markaa dad badan oo ciyaartooy waagaas hadda ahaa maktab halqan ka gaaray aan isla ciyaarnay sida qalar dacar baashi boglaawe sanbanda muuse allah oo naxariisto cabdiqani jeeyo dad badan oo runtii macnaha sportiga ka gaaray adiga dhanka aad wacatay aniga markaa adiga wadanka waxaan kasoo tegay 1988 marka waxaan usoo tegay waxbarasho oo marka aan u imo wadanka waxaa la talyaaniga laakiin nasiib wanaag sanadkaas aan ciyaaraha ciyaaraynay degmada cabdicasiis waxaan qaadnay koobkii degmooyinka markaa loogu tartamayay 86ka waxaana ka mid ahaa ciyaartoodii markaa loo magacaabay gobolka banaadir sanadka anagoo ilaa iyo 7 qofood ah marka maanan gaarin heer maaragtay zero ama qaranka wadanka ugu soo ciyaaray macnaha naadiga heer koowaad Mr. Bana adoo mahadsan taasi hadda su-aashaasi jawaabteeda waxay waafi ka tahay in aad hore uga mid ahaan jirtay bahweyntii sportiga kubadda kolayga ciyaaradeedana aad aqoon u lahayd dad badan ayaa waxay isweydiinayeen Bana maadaama uusan aqoon u lahayn xilalkan waaweyn oo uu kasoo qabtay xirrada kubadda kolayga sidee ku imaatay tanise waxay daawo u tahay su-aashaas dadka badan isweydiinayeen horta أنا waxaan dhihi lahaa horta isku ma xirna qofka inuu ciyaartooy ahaan jiray iyo maaragtay iyo maamulku waa different أنا waxaan aaminsanahay qofka duu ciyaartooy ahaan jiray macnaha waxay noqonaysaa aqoon kale oo macnaha oo ninka uu sii haysto oo hadduu ta management yaqaano ta sportiga hadduu sii leeyahay way ka sii fiican tahay laakiin waxaan moodaa in sanadii ugu dambeeyay maamulka kubadda kolayga aan ka mid ahaa maamulka qofku soo baran karaa marka waxaan dhihayaa isku ma xirna laakiin hadda waa cadeysay inaan ciyaartooy ahaa taasna waa marka waa taas waa daawo kale u tahay laakiin dad badan oo Soomaali ah ayaa waxay qabaan in ama aan iraahday bahweynta sportiga hadduusan qofka ciyaartooy ahaanba si kale ayuu arkayeen jirtana hadda waa iska cadaan u maleynayaa arrimo bajiro aawadeed iyo su'aalo soo noqonaya muddooyinkii la soo dhaafay xilka kala duwan ay haysay ayay cadeen u tahay arrinkaasi haddii aan ka gudubno imise ayaad haysay gudoomiye ku-xigeenka labaad ama koowaad buu ahaa xilkii lagu dhiibay ugu horeyntii xiriirka kubadda kolayga markii aad muddo is abaabusheen aad dhalinyaro aad abaabusheen ciyaaro aad u geyseen waxaan hayaa umaleynaya kulli waxaan umaleynaya inaan gudoomiye saddexaad ahaa marka waxaa igu horeeyey Tarzan iyo nin kale cali inuu ahaa umaleynaya marka xamar joogay Mr. Rombe markaa gudoomiye ahaa markaas gudoomiye ku-xigeen buu ahaa marka waxaan hayay ilaa iyo 2009 ayaa waxaan ahaa gudoomiye ku-xigeen gudoomiye ku-xigeenkana goorma lagu magacaabo markaas ma sanad ka hor ma 2 sano ka hor waxaa la magacaabay filaa 2007 2 sano soo haysay kadib maxaa isbedelay marka sidee ku imaatay in xogeeya xiriirka kubadda kolayga lagu magacaabo maxaana sababay waxaa dhacday waxaa jirta shir aan ka qayb galay 2009 aan filayaa shir ka dhacay Qaahira oo ahaa shirkii Afrika 2008 ayaa waxaan la kulmay xogeyaha guud kubadda kolayga qaaradda Afrika oo waxaan ku kulmay markaan tagnay ciyaarihii Beijing iyo gudoomiyaha FIBA Africa runtii markaan wada hadalnay aan sheekaysanay aan wada hadalnay xaaladda Soomaaliya runtii markaa communication fiican ma jirin oo dhanka Soomaaliya iyo Afrikaba kadib marka waxaa dhacday inuu igu casuumay shakhsi ahaan inaan ka soo qayb galo shirkaas ka dhacay Qaahiro oo marka aan la kulmo madaxdii kale zone 5ka iyo kuwa kale shirkaas kadib ayaan waxaan isla garanay in ay u baahan yihiin qof ay la shaqeeyaan runtii ay wada xiriiraan maadaama ay arkeen aniga inaan ahay qof marka wadanka aan joogin oo degan Ingiriiska in marka ay yiraahdeen qofka kaliya aan la shaqeyn karno waa inuu qofka ama gudoomiye waa inuu ahaadaa macnaha si xiriirka oo si macnaha xoogeysto ama inuu qofka xogeey ahaadaa maadaama mas'uuliyadda ay saaran tahay xogeeyaha gudoomiye ku-xigeenada badanaa waxay matalaan hadduu gudoomiye wadanka maqan yahay oo kale ama gudoomiye hadduu shirka qayb galay in marka booska ay buuxshaan gudoomiyaha laakiin shaqada badanaa waxaa wada waa xogey macnaha qofka xogeynta ah saas darteed ayaa markaa waxay yiraahdeen waxaan jeclaan lahaa haddii aadan gudoomiye noqonaynin marka aniga u sheegay marka aanan gudoomiye sababtoo ah
maadaama aan waddankan ka shaqeeyo runtii waa igu adkaan lahayd inaan guddoomiye noqdo marka waxaan doorbiday in markaa xogeeye aan noqdo si markaa wada shaqeynta Africa iyo xiriirada ku gartay marka in xogeeye aad u noqoto xiriirka waa ii soo bandhigeen macnaha maadaama aan waddanka joogo luqadeedana ay fiicneed ingiriiska ay arkeen in runtii shaqadii wadi kara markaan u sheegay ciyaarihi aan ka qayb galnay Africa iyo kuwa aan ciyaarihi aan u aadnay maxaa Morocco in markaa ay arkeen in qof wada shaqeyntiisu macnaha ay aad u fiicnaan lahayd haddii markaa aan noqdo xogeeye adoo mahadsan waxaan ogsoonahay in dalkii uu muddo burbursanaa intaa xilalkaas haysay runtii isboortiga Soomaaliyeed waxay dadka badankiisa mar walba yiraahdaan isboortiga Soomaaliyeed waa waxa kaliya ka noolaa burburkii iyo dagaaladii sokeeyay intaba adiga sidee u aragtay arrinkaasi ma islahayd isboortiga Soomaaliyeed uu ka badbaaday burburkii iyo dhibaatada mise aragti ka duwan aragtidaas ee dadka Soomaaliyeed soo jeediyeen ayaa qabtaa والله horta runtii wii Soomaaliya dagaaladiisa kadib runtii waxyaalo badan baa baaba'ay sportiga macnaha wuxuu soo galay waxyaalaha runtii markii la fiiriyo ugu baayoontiyo markii macnaha noloshii iyo arrimaha bulshada markii loo fiiriyo laakiin waxaan ka dareemi karnaa ama runtii aan sida ognahayba sportiga wuxuu ahaa wax kaliya marka waddanka ka jiray ayuu ahaa oo wali markaa sii wada dhaqdhaqaaqi sportiga inkastoo dhankii macnaha garoomadii iyo macnaha maamulkii ciyaartooydii badan waddanka ay kasoo baxeen laakiin waxaan filayaa inuu ahaa waxyaalaha hadda maanta aan dhihi karno way sii wadeen macnaha waxqabadkii sportiga inkastoo uusan gaarin heer sare laakiin at least waa waxa kaliya aan dhihi karo way sii socdeen ilaa dagaaladii ilaa hadda waqtigan aan joogno inta aad xilka haysay xogaynimada xiriirka kubadda kolayga sidaan ogsoonahay magaalada tan London aan ku noolnahay waxaa ku nool dad aad u fara badan bahweynta sportiga gaar ahaan haddaan tiriyo lambar aad u fara badan ayaa ku nool kubadda kolayga wiilal iyo gabdhaba sidee ahayd wada shaqeyntii markii xilka lagu magacaabay ay kula sameynayeen waa dad badankood aad bay kula shaqeynayeen ma aragtiyo kala duwan ayay qabeen sidoo ahaa wada shaqeyntiina والله horta shita macnaha ilaahay shita farood macnaha horta ma wada siman runtii qofka markuu mas'uul yahayna wax walbo waa in u diyaar garooba dad waxaa jira ku taageersan shaqada maaragtay marka ama xilka marka lagu magacaabay dad way jiraan macnaha ka soo horjeeda ama macnaha ka fikir duwan muhiimadda waxay tahay mar walbana aan yiraahdaa muhiimadda shaqada loo hayo iyo dadka loo hayo macnaha markasta in horta ay ka weyn tahay waxyaalaha kale dabcan way jireen dad markaa fikrad kale ay markaa u arkay aniga iyo Allah naxariisto Umar ayeen hawsha aan u haynay wadanka taasi marka waa aragti qof uu leeyahay qof macnaha aragtidiisa asay ku kooban tahay dad badan way jireen oo markaa waxaan sameynay in fact dadka majority-ga macnaha waxay u arkay waxyaalaha aan sameynayno inay wax aad iyo aad wanaagsan ay ahaayeen runtiina caawinad inta leeg ayaa ka heli jirtay ma aragtay dadkaas bahweynta sportiga ah gaar ahaan ku wallahi majority dad badan baa ayaan jiray oo aad noo taageeray qaar Mareykanka degan sida macallin Sheekh oo kale macallin Bruno Ahmed Dey Farax Oday Daoud dad badan waxaa jira aad macnaha North America halkan dad badan way joogeen runtii macnaha aad noo gacan siiyay dhanka sportiga ahaa oo runtii macnaha aan dhigi karo macallin Shiino macallin John Qardaas majority badan maar shiis macallin shiis Xawtaako runtii dad badan waxaa jira aad noogu taageeray macnaha wax qabadkeena macnaha runtii macnaha gacan fiican nagu siiyay inaan maarad hormarno baan hal inta aad xogayaa xiriir kubadda kolayga ahayd maxaad isleedahay xilligaas waad u qabatay xiriir kubadda kolayga ama lagu xasuusan karaa ma aragtay intaas aad xilkays والله horta waxyaalaha hadda anigu muhiimsan aan dhigi karo aan qabanay aniga marxuumka Allah naxariisto waxa kamid ah waxaan ayana amada dadkii ugu horeeyay ciyaartooy matala qaranka Soomaaliya aan ka soo inta burburka ka dhacay burburkii intuu dhacay kadib in ciyaartooy Soomaaliyeed qaranka ugu horeeyay oo ka keena ciyaartooy dibadda way jiraan ciyaartooy laga kaxeeyay Soomaaliya qaar kalena maartay
oo Tarzan iyo Duraan ay kaxeeyeen iyo Macalin Baarajib laakiin anaga waxa dadkii ugu horeeyay ciyaartooy dibadda North America ka keenay isku daray qaar Europe iyo Mareykanka anaga aan dibirnay qarashkoodii oo markaa matila xulka qaranka Soomaaliyeed taas macnaheedu horta waxay ahayd arintii ugu horeysay aan sameynay runtiina way suurto macnaha waxay noqotay arin aad u fiican sababtoo ah waxaan ka badanay kooxo markaa dhisan waxaan ka badanay kooxda Uganda oo runtii ah wadan macnaha jiro oo jiray burbur muddo aysan ahayn dawlad ahaa waxaan kaloo ka badanay Eritrea waxaan kaloo ka badanay koox kale oo markaa aan la ciyaareen maxsuusaad kooxda ahayd dhowr koox ka badanay Masar hataa waxay noogu badisay si dariiqa ah marka waa dareemi karnaa macnaha waxqabadkii markaa qabanay markaa ka horna ma jirin activity basketball ah aan ka ahayn localka wadanka laakiin aan dibadda aysan ahayn waxaa kaloo ahayd oo markii ugu horeysay aan koox under 18 ah oo national teamka sidoo kale u matala qaranka Soomaaliya aan geynay magaalada Morocco 2008 dalka Morocco oo waliba qarashkii markaa ku baxay badankooda oo ah mid aniga shakhsi ahaan aniga aan u baxshay ciyaartoydii tikidhoodii iyo macallimiinta qaarkood runtii waxaan dhihi karnaa waa labo arrimood oo runtii muhiim ah taasna waxaan ku helnay in jaamacadda carabta ay aqoonsi fiican noogu siiso arrinta maadaama wadamo badan oo carab ah aysan kasoo qeybgelin ciyaaraha sida Suudaan oo kale waxaan filayaa in macnaha Jordan inay ahayd Qatar wadamo badan oo lacag leh aysan kasoo qeybgelin Soomaaliya markaa runtii oo dagaal ka jiray in dadkii guddiga carabta taa macnaha ka yimid jaamacadda carabta ay noo arkeen macnaha fikradii marka hore ay naga qabeen iyo marka ciyaartooyda aan kaxeynay runtii noo siisay macnaha abaalmarin aad iyo aad maarad u muhiimsan qaasatan aniga shaqsi ahaan markaas kadib 2009 waxay ii magacaabeen inaan ka noqdo xubin jaamacadda carabta dhanka kubadda kolayga waan qofkii ugu horeeyay waxaan ahaa Soomaaliya markaa burbur kadib matalaha burbur kadib iyo ka horba waa qofkii ugu horeeyay shakhsi ugu horeeyay Soomaaliya ilaa hadda wali waxaan ka ahay member ka tahay aad u maasantay inta xilka hays oo xiriirka kubadda kolayga xilka kala duwan u soo haysay maxaa caqabad oo kugu hor yimid oo aad leedahay waxay kugu ahayn caqabad aad hor u dhaafweysay waxyaalo badan aad qaban lahayd ka hor istaagay horta waxa ugu muhiimsan ama ugu adag waxaa ka mid ahaa oo shaqadaadii caqabad ku ahaa qarashka lacagta dhaqaalaha wuxuu ahaa waxa kaliya maanta aan dhihi karo the biggest obstacle oo aan dhihi karo qofka dusul lacag haysanin ciyaariga kama qayb geli kartid way ku adkaanaysaa marka taas ayaa waxaan dhihi karaa biggest challenge marka ciyaartooy fiican waan haysanaa Mareykanka North America Europe ciyaartooy waxaa la helayaa college ka ciyaaro oo aad tayo leh laakiin waxa ku xayiraaya waxay tahay lacagta distance gina macnaha ayadana waa difficult marka ciyaartooy meelo badan kala degan in aad isu keentid aad meel wada keentid dawladda ahayn ayadana waa big challenge laakiin the biggest waxaan dhihi karaa kharashka qofka duu kharashka haysto waxa dhibaato ma ciyaartooy tigidka u diri kartaa ma kasta keeni kartaa sidaan ogsoonahay xiriir walba oo jiro dunida ama active ka ah waxaa jiro qorshayaal ay u qoondiyeen xiriirada caalamka sida xiriirka kubadda kolayga adduunka oo kale xiriirada Afrika oo kale dhaqaale ay u qoondeeyaan mis leedahay ma jireen wax dhaqaale ah intaad xilkaas haysay oo loo qoondeeyay oo aad leedahay sidii la rabay waxba uma socon waxba iska jiro mugdi baa jiray wax ma aragta arrimahaas ilaan maadaama aad xiriir iyo wadan aad matalayso oo aad xiriirna aad ka mid ahayd miyayna jirin wax dhaqaale ah oo xiriirada adduunka idinku caawiya tigidadaas iyo xiriirada ciyaarahaas inaad qayb gashaan idin fududeynayo horta wiishow waxaan filayaa FIFA ama xiriirka kubadda cagta adduunka waa xiriirka kaliya maanta aan dhihi karo ugu dhaqaala badan haddii noqoto dhanka maaragtay income-ka sababtoo ah waxay helaan intaasoo maaragtay sponsorship ay helaan taasoo markaa macnaha kaliftay inay taa qarashka kasoo gala inay taa ay siiyaan wadamada qaarkood maaragtay actually majority ay siiyaan Africa runta aad macnaha ay ugu kaalmeeyaan xagga dhaqaalaha kubadda kolayga runtii isku hal ma aha waa dareemi kartaa sponsorada badanaa waxaa qaatay kubadda kolayga marka soo kubadda cagta marka kubadda kolayga ma laha fan runtii aad u badan oo marka ay wax ku siin karaan qaaradda Afrika ase yeeshee aniga marka xilkii aan
qabtay waxyaalaha runtii xoog aan saaro waxay ahayd aan shir badan aan ka qayb galay in macnaha sidii fan loo siin lahaa in fikir badan ah in ciyaartoy aan dibad ka keenno oo tayo leh oo Soomaaliya magac matala runtii way nagu raaceen laakiin maadaama qarashka loo baahnaa wax marka ayaga naga siin karaan maaha Afrika runtii dhaqaale ma laha marka adduunka aan u soo leexdo waxaan si wanaag aan u yeeshtay inaan barto dad badan oo madaxda kubadda kolayga ah markaan tagay shirkii Istanbul marka waxay ii sheegeen in hab lacag lagu heli karo ay jirto waxaan xasuustaa markaan Beijing joogay koox markaa ciyaaro ka qayb galaya Beijing qaasatan Yurub bari in dhaqaale la siiyay macna wadan dhisan waay macna Lithuania kala dar wadan aad u dhisan waay dhaqaale leh oo Yurub ah waxa la sheegay in lacag badan la siiyay maartay si ciyaaraha maartay tiknoolajiyada lagu taageero marka Soomaaliya marka aan soo jeesto waxay yiraahdeen waa la siin karaa marka waa inaad lacag ka soo cusubtaa qolo marka la yiraahdo Olympic Solidarity oo runtii qayb kamid ah Olympicada adduunka oo marka runtii ay fanka baxsha waxaa jiray marka qarash ama fan loogu talagalay tiimamka marka la yiraahdo grand support team in marka ay yiraahdeen soo cusada marka maadaama ay yihiin kubadda kolayga adduunka waxay marka ay ii sheegeen inay maaragtay iyo ogolaan doonaan marka lacagtu waxay soo maraysaa FIBA in approve garayso wadamada la siinayo ayaga macnaha controlsho wadanka la siinayo wadanka kale marka taas ay ballan qaaday marka waxaa jirta lacag marka aan apply garaysan ilaa 42,000 ah marka aan ciyaaraha ka dhacayay Rwanda 2011 ahayd aan uga qayb galno fankii nasiib wanaag waan helnay oo lacagtii waa la soo ogolaaday kanku waxa soo dhacday goos laakiin nasiib daro waxa dhacday in lacagtii marka aysan goos ugu soo wareejinin taas ayaa keentay macnaha khilaaf marka ka dhacay lacagta oo loogu talagalay basketballka aan ka baaqan ciyaaraha markaasi marka Rwanda marka aan caqabadaas darteed ay saameyn waxa ku yeelatay in xilkii xogeynimo aad ku weyso waxa dhacday kadib markii ciyaartii aan ka baaqanay runtii waxay ahayd arin aad u foolxana sababtoo ah ciyaartoy aan muddo tababar maart la soo siinayo macallimiinta macnaha Qadar Sheekha iyo Baroon oo ay naftooda macnaha shaqadii marka iska casilay marka kadib in hataa ay waqti badan geliyeen runtii hool badan aan gelinay oo macnaha barnaamij aad u fiican ahaa in marka ciyaaraha laga qayb galo taas waxa dhalisay marka inaan maartay arinta aan ka soo horjeesto taasoo marka macnaha kaliftay inaan shaqadii marka aan u hayay xogeynimada meesha marka aan aad ku weyso dhanka kale waxaa la sheegay oo adiga ahaan lagu eedeynay xirrada ay ku eedeynayeen dhahayeen Masarbana meediyaha ayuu maaragtay la hadlay intuu la hadli lahaa xirrada ama xirka goos contacti intuu la sameyn lahaa ayuu si toos ah meediyihii waxyaalo badan oo ku ficnaa in dadkii oo mas'uuliyiinta wada ah inay ka wada shaqeeyaan sidii wax u maareyn lahaayeen muu sameynin si toos ayuu meediyaha waxyaalo aan loo baahnayn u soo bandhigay taasi maxaad ku difaaci lahayd wallahi horta waxaan dhihi lahaa waxaas waa iska propaganda qofka bini'aadamkana waxaa fiican inuu runta xaqiiqada ka hadlo aniga intaan media tagin waxaan ka qayb galay marka ciyaaraha anoo shaqo ahaan u tagay maadaama aan kamid ahaa boorka zoonka shanaad aan tagay macnaha Rwanda kadib markaan soo noqday ciyaarihi aan ka baaqanay ayaan media tagay mediana waxa uu macnaha kalif inaan tago inaan runtii wixii meesha ka dhacay inaan sheego sababtoo ah waxaa markaa la igu eedeeyay in aniga ka dambeeyay ciyaarihii markaa laga baaqday taas markaa waxaa u arkay in baan abuur laga sameeyay markaa waxay qasab igu noqotay inaan markaa isdifaaco adoonan wax xiriir la sameyn xiriiradii waa la sameeyay ka hor xiriirkii macnaha dhowr email ayaa la diray oo markaa kulli hadda maxaa lama doonaa inaan macnaha arrintaas aan ku dheeraano dib u soo celiyo laakiin cadeemo ayaa jira hadda arrintaas maadaama aan ogahay in arrin la soo dhaafay ay tahay adigana aad hadda shaqooyin kale aad dalka Soomaaliya u matasho oo FIBA Africa aad ka tirsan tahay waa sidee hadda xiriirka goos iyo adiga Masarbana Cali shakhsi ahaan maadaama uu hadda xiriirka gudoomiye uu ka yahay Masar Duraan oo runtii sidaan ogsoonahay aad ahaydeen rag isla soo bilaabay halgan dheer saaxiibo gaaran ah
suu yahay maadaama shakhsi ahaan anuuna ka hadlaynin Masar Duraan gudoomiyaha laftikiisa balse xiriir ahaan guddiga Olombikada Soomaaliyeed xiriirada hoos yimaada gaar ahaan xiriirka ka tirsan kubadda kolayga kulli haddaad isku soo qabato suu yahay xiriirkiina hadda saa sheegtay Duraan nin daris ayaan nahay nin saaxiib ayaan ahayn isboortigu waxaan usoo galay inaan asiga ku taageero oo runtii dad badan baa kasoo horjeeday Duraan oo markuu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii marka aniga Cumar Allah naxariis aan u aragnay in macnaha maadaama qof dhalinyaro uu yahay isboortiguna macnaha jeclaa in wax u qabto inaan markaa aan support ku siino runtii hadda wax xumaan ah aniga asiga shaqsi ahaan oo naga dhaxay ma jiro laakiin in principle waxaan ku kala fikir duwanahay say u shaqeeyaan kulli waxaa fiican mar walba markii wax aad critic lagu sameynayo inay noqoto critic wax taraayo mid wax duminayso mar walba waa laga qurux badan yahay oo ma fiicno shakhsi ahaan soo ma fiicno in maaragtay wax walba oo qaladaad ah in si tartiib ah wada hadallo ugu sameyso qoraal waxyaalaha is leedahay qofka bini'aadamka markuu shaqo qabanayo waxyaaluhu ku qaldanaan karaa waxbuu qaban karaa waxaas qaladkaas waa laga sixi karaa maadaama aad dadkii la soo wada shaqeysa asxaabna aad la tahay soo ma fiicno in xiriiro badan oo direct ah inaad la sameyso oo aad xiriirkiina wanaajisaan maadaama mar walba fiicneen in caqabado iska hor imaado la isfiiriso horta wiish waa runtii hadda macnaha qofka dadka mujtamaca macnaha Soomaaliyeed ama baa isboortiga ama dadka isboortiga xiiseeya arintii markaa dhacday 2011 runtii waxaa loo arkay arin ma bil mafalana laakiin waxa badan baa ka horeeyay oo runtii anigu aan doonin halka aan ka sheego oo runtii marka wada shaqeyntii iyo wasaan wax aan loo sameeynin oo wada hadalkii uu jiray marka buuqeed ugu dambeeyay dhacay wuxuu ahaa turning point macnaha limit waxaan gaarnay marka aysan ahayn wada shaqeyn marka inay naga dhaxayso laakiin waxa badan baa ka horeeyay aadamiyada ku soo maqlin waligiinaba aad maqlin oo marka naga dhaxdhacay ama xiriirka ahaada ama goos ahaada wada shaqeyntii oo runtii marka aan u arkay inay macnaha in Soomaaliya waxa tiraahdaa kaada badan waa loogu golbadiyaa in macnaha aan markii tala iyo ama aska dhaaf marka qaarkood aan u arkin wax ma aragtay controversial ah aan tiraahdo dhibaatadan waxa keenay maadaama waddanku burbursan yahay aysan dawlad jirin laakiin tii ugu dambeysay waxay ahayd waxaan gartay marka in ahayn dad marka aan la shaqeyn karin ama dad wada shaqeyntan marka ay si wanaagsan karin marka hadda waxaan u maleynayaa in marxalad walba ahayd 2011 maadaama aan gudoomo 2012 aan joogno oo 2013 hadda albaabka uu noo saaray hadda Allah awooda leh oo karaal noqdo soo ma gudboono wixii hore oo dhan in maaragtay laga tago oo baal cusub la wada furo maadaama aad tahay nin shaqo badan ragga ay yihiin inay shaqeynayaan waxaa laga yaabaa maaragtay qof walba oo shaqeynayo shaqadiisa siba u toosanaan kartaa adoo kula qaldanaan kartaa adoo shaqeynayso ayaa aniga waxay ahaan kartaa inay qalad ku jirto waxaa fiican mar walba marka in maaragtay dadka ay xiriir wada sameeyaan oo wada shaqeynaa si wadanka meeshuu maanta joogo aan ugu gudubno adoo baxsan waxaan ogsoonahay Baana Cali inaad intaad xogaha gudoomiyaha aad magaceena meel badan geysay shirar badan oo caalamiin ah ka qayb gashay bal shirkii Mali haddaan dib ugu noqono bal ka waran yaa ka soo qayb galay shirarkaasi adoo haddaan ogahay dhawaan shir kale aad ka soo noqotay ayadoo aan u soo noqon doono shirarkaasi bal nooga sheekay intaad xogaha xiriiradii iyo aad waxaad soo sameysay horta shirar badan waa ka qayb galay dad badan waa la kulmay kan Mali wuxuu ahaa shirkii Congress-ka FIBA Africa oo 40 sano mar la qabto shirkaasi oo ka dhacay caasimada Mali Bamako waxaa lagu dooranayay gudoomiyaha qaaradda Afrika ee kubadda kolayga xogayaha qaaradda Afrika dhammaan waxa ka soo qayb galay ilaa iyo aad ma xasuusta 43 dawladood oo Mareykanka ka soo qayb galeen oo Soomaaliya marka ka mid tahay aniga marka u matalayay calanka Soomaaliyeed gees calanka Soomaaliya ma shaqeynay oo markii ugu horeysay aan filayaa in dagaaladii sokay kadib shir caalami ah marka kubadda kolayga ah in looga qayb galo magaca Soomaaliya nasiib wanaag shirkaasi waxaa la igu soo doortay oo marka aan noqday member kamid ah zoonka shanaad ama gudoomiyaha suuqgeynta ee qaaradda Afrika qaasatan zone 5
kadib waxaan ogsoonahay inaad safaro badan gashay oo shirar kale oo caalami ah ka qayb gashay intii aad xataa xilkii ka degtay xogeeyanimo xiriir kubadda kolayga ah bal shirarkaasi faa'iidada ay u leedahay dalkii Soomaaliya maadaama aad tahay nin Soomaaliyeed waxyaalihi aad kala soo kulantay wax nooga sheeg horta shirka marka aan ka qayb galay marka xogeeyaha waxaa kamid ah shirkii kale jaamacadda carabta oo ka dhacay Qaahira 2009 sanadka ugu sheegay taas runtii markaa noqotay waqti qaasatan aniga aan iloobayn sababtoo ah waxaan noqday qofkii ugu horeeyay ee markaa jaamacadda carabta ah ka noqdo member xubin qaybta kubadda kolayga waxaan kaloo tagay shirkii ka dhacay FIBA World ka dhacay Istanbul ciyaarihii adduunka waxaa kaloo tagay shirar badan oo markaa ka dhacay Geneva marka runtii waxay ahayd wax marka dhalisay ama marka aan dhihi karo Soomaaliya usoo jiiday in markaa Soomaaliya la aqoonsado ama lagu support gareeyo waxyaalo badan sida la socoto Soomaalida waxay tiraahdaa ninkii saxiis dibi dhal haddii aadan shirarka noocaas aadan ka qayb gelin runtii waxaa ku waynaysaa kuraas badan kuraas kaliya ma dhihi karno hataa waxaa ku waynaysaa recognition haddii waddanka aadan markaas aadan matalaynin waddanka uusan ku joogin xaqa Soomaaliya markaa u leedahay inaha ma helaysid hadda shirkii oo kale dad carabta oo kale waxaan xasuustaa in Soomaaliya maysan ka qayb gelin shir carab dagaaladii isukay kadib in marka ay boorka marka iska haysteen in Suudaan iyo in maartay Masri ah runtii waa dareemi kartaa 20 sano ugu dambeeyay in ay marka meesh maamulay marka aniga aan tagay waxaan isku dayay in macnaha aan ka mid noqono xubnaha jaamacadda carabta xaqna oo leenahay Soomaaliya maadaama aan nahay kale vote-keena ama xaqeena macnaha meeshu ka baxo marka waa aad bay muhiim u tahay in shirka laga qayb galo waxaan ogsoonahay in dhawaan sanadkan bilowgiisu ay ka dhacday dalka Uganda gaar ahaan magaalada Kampala ciyaaro kamid ah ciyaarihii magaalo madaxdeeda wadamadan East Africa waxaa ka qayb galay Soomaaliya Muqdisho iyo Hargeysa waxay dad badan oo mas'uuliyiin ah ay kuga eedeeyeen in aad qaar kamid ah ciyaartooydaas adiga aad meesha geysay xiriradana aan wax shaqo ah ku lahayn taasi maxaad ku jawaabi lahayd horta waxaan rabaa inaan kuu sheego ciyaaraha ka dhacay Kampala sheegaysa waa ciyaarihii Intercity-ga waa Eastern Central Africa Intercity Games ciyaaraha ma aha ciyaar caasimada ma aha ciyaaraha waa ciyaaraha magaalooyinka zoonka shanaad markaan ku dhahay magaalooyinka marka waxaa kamid ah magaalo kastoo markaa awooda in macnaha koox ay diyaarsato macnaha kasoo qayb geli kara Soomaaliya waxaa ugu soo qayb galay Muqdisho iyo Hargeysa Kenya waxaa ugu soo qayb galay 3 kooxood Mombasa Nairobi iyo Kisumu macnaha magaalo wadan kasta waxaa ugu soo qayb galay 3 ilaa 4 marka macnaha ugu waaweynaa marka ka qayb galay ciyaaraha marka dadka maamulo marka waa dad madax banaan oo marka aanan maartay u shaqeynin xiriirka kubadda kolayga qaaradda Afrika laakiin waa dad la shaqeeya marka laakiin ma hoos imaadaan constitution gooni ayay leeyihiin marka dadka maamulo marka ciyaaraha marka waxay awood u leeyihiin in si toos ah ay ula xiriiraan magaalooyinka wadanka zoonka shanaad ama ha usoo marayna xiriirka kubadda kolayga ama si toos ah ay maarta soo xiriiraan marka waxaa dhacday aniga in aan ka helay casumaad ciyaarahaas ka dhacay Kampala oo marka madaxdii qaar kamid ah aan isku jirno zoonka shanaad ee FIBA Africa marka ciyaarihii aan tagay ayaa waxaan ka war helay in kooxdii ka socotay magaalada Hargeysa ay marka wadanka macnaha ay wadanka joogaan oo hotel ay degan yihiin iyo kooxda Muqdisho oo marka meesha tagay aan ogaaday in macnaha koox Muqdisho ka socoto ay ka imaanayaan wadanka Kenya ama magaalada Nairobi marka ciyaaraha sidii marka ay ku dhaceen waxaa soo qaban qaabiyay qaar kamid ah xiriirka Soomaalida kubadda kolayga والله marka meesha tagay ciyaartooyda markay yimaadeen dad waxa watay runtii aan hore ula kulmay ama ciyaartooyda hore kamid ahaa Khaliif oo jaalida Nairobi ah iyo ciyaartooyda maartay hore u ahaa ayro
xulka qaranka u ciyaari jiray waxay noo sheegay inay markaa matalayaan gobolka muqdisho oo marka ay ka haystaan macnaha authority xiriirka kubadda kolayga ee Soomaaliya. Masarbana bal waxaad nooga warantaa taas waxaan u maleynayaa in ay ahayn su'aal hadda kugu cusub misaa hore u maqashay Masarbana ayaa ka mas'uul ahaa ka qaybgalitaanka Muqdisho dad aan laga keenin caasimadda Xamar si toos looga keenay Nairobi taasina dad badan ayaa waxay leeyihiin waxay aad fool xumo aad iyo aad u weyn tani laakiinse waxay ka turjumaysaa hadda inaad adiga waxba ka ogeyn oo aad meesha ugu tagtay dadkaas oo laga soo waday dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi. Wallahi horta wiish qofku markuu rabo inuu qiil ku raadiyo ama qofku markuu rabo inuu xumaan maarta sameeyo ama qofku markuu rabo inuu ka dhigo nin maarta guilty wax walba marka asagu u fikir ay tahay ayuu macnaha ay ku tilmaama ama media ka hadlo ama kala ka sheego xaqiiqadu waxa ah in kooxdii marka matalaysay Muqdisho sanadkan ciyaarihii uu soo qayb gashay sanadkii ku horeeyay 2010 lagu qabtay ciyaarihii inta ka dhacay Nairobi waa kooxda marka Muqdisho ay matalaysay magaca Muqdisho u matalaysay waxaan xasuustaa ayaga ay sheegeen markii dambe aan ka war helay in kooxdaas markii hore ay ogolaansho ka haysteen xiriirka kubadda kolayga Soomaaliya in marka u matalaan magaalada Muqdisho markii waxaa xasuustaa in gabdha kaliya ay ka soo qayb galeen hadda xasuustid aad iyo aad marka maamulka waxa gobolka Banaadir waxay awoodeen kaliya in gabdhaha kaliya ay ka baxshaan macna tigidhada laakiin wiilasha aysan awood u hayn marka waxa dhacday in dhalinyarada aan ku sheegayo baaji iyo ayaga ay yiraahdeen war anaga halka joogno Nairobi joogno madan caariye wadanka Nairobi lagu qabanayo anaga aan matalno magaca Soomaaliya Muqdisho anaga aan isdabareyna bal aan ku ciyaarno marka ayaga marka ogolaashay marka si marka su'aasha marka la isweydiinayo waxay tahay nimanka marka hadda ay yimaadeen 2011 hadda ciyaari ka dhacay Kampala sidee u soo xiriireen waa dad marka horeba Soomaaliya ay tiri Muqdisho nimankan ayaa nooga mas'uul ah maanta hadaan ku dhaw wiish maanta ay mas'uul ah dadkii waday waa dad connection hore u haystay oo dadka xiriirka kamid ahaa madaxda xiriirka ay joogeen ay yiraahdeen war kooxdan uu wato Khaliif Baaji iyo Ayro ayaa magaca Muqdisho matalay sanadkaas marka sanadka ku xigay marka dadkii marka dad la yaqaan hore oo connection-ka haystay ayaga si toos magaca basho u yimi dadkii marka la yaqaan marka diiraan waxaan ka soconaa Soomaaliya hatta in marka hadii asaasin ma tawaraaq laakiin wala macna dad hore soo dheelay loo yaqaan waay marka intii ma fiicno in dadka qaar kood ay in tiraan oo marka maarta iska dhigaan waxaan waxba maarta ka warqabin anigu waxaan filayaa in dadka macnaha ciidanta ay ugu sameeyay runtii inay ka tahay marmarsiyo marka ay rabeen maarta in ay sharafteeda soo dhigaan balse taas waxay ka tahay adimirkayga ima siinayo aniga shaqo xil aan ka soo tagay waad soo qabatay inaad ama fargelin ku sameeyo waad maasantahay shirki ugu dambeeyay magaalada Qaahiro oo dhawaan aad ka soo noqotay ilaa imise dawladood ayaa ka qayb galay maadaama adiga aad xiriirka Afrika u matalaysay aad u joogto goobjoogka ahayd balse xiriirada qaaradda Afrika dhan ayaa meesha isugu tagay qaar kamid ah wadamada horumaray sida dalka Jarmalka iyo Faransiiska Spain Istanbul Turkiga maadaama ay ka qayb galeen bal naga waran shirkaasi waxaa kamid ahaa dadka qayb galay xogayaha xiriirka kubadda kolayga Saciid Faarax bal intaan u soo noqon wada shaqeynta adiga xogayaha iyo xiriirkiina sidoo yahay bal shirkaasi faahfaahin naga sii shirka horta wuxuu ahaa shir Congress-ka Afrika inkastoo ahaa shirka 4 sano kadib in la qabto maadaamkii hore oo ka dhacay Mali oo ahaa 2010 shirkan wuxuu ahaa shir degdeg ah macnaha hore looma sameeyay in 2 sano macnaha kadib shirka la qabto laakiin duruufo ayaa kalifay shirkan si degdeg loo sameeyo runtii shirkiina waxa ka soo qayb galay 33 macnaha dawladood marka Afrika ay ka koobnaad oo marka matalayay wadamada maartay xiriirada Soomaaliya waxa matalayay xogayaha Saciid Faarax iyo guddiga qaaradda Afrika iyo madaxda qaaradda Afrika oo marka aniga aan kamid ahaa zoonka shanaad shirka marka waxa looga hadlayay waxyaalo badan waxaana u muhiimsanaa shirka looga hadlay wax qabadka 2 sano ugu dambeeyay macnaha la soo qabtay waxa kaloo laga hadlay isbedelka lagu sameyn doono dhanka
maamulka sida ciyaaraha macnaha loo qabto iyo gurubyada maaragtay si wadamada maaragtay loo kala gelinayo waxa kaloo laga hadlay isbedel ka dhacay FIBA World oo macnaha dalada ugu weyneed oo marka ay sameynayaan adduunka ay ku sameynayaan sida ciyaaraha isku aadka iyo qualificationka loogu qayb galayo ciyaaraha Olympiga adduunka oo wax laga bedelay oo marka ay doonayaan in isbedelka marka ka dhacay kor loo gudbiyo qaaradaha macnaha ayagana marka isbedelkooda macnaha inay maartay ayagana maartay ta loo sameeyo taasna waa laga hadlay waxa kaloo laga hadlay isbedelka constitutionka ama governance-ka sida loo maamulo maartay qaaradda Afrika marka runtii waxay ahayd kulan aad u wanaagsan oo maamul ayuu socday waxa ka maartay aan kula kulmay macnaha xogayaha Saciid Faarax oo asal marka u matalay wadanka Soomaaliya maalinta labaad shirkii saa sheegtay wadamada hadda ka imaaday Yurub ayagana waxay soo bandhigayeen sida u maamulaan xiriirada waa dareemi karnaa marka la fiiriyo wadamada Yurub si wax u maamulaan habka u generate garayaan maartay dhaqaalaha Soomaaliya madda Afrika dhawaatada ugu weyn waxay tahay jiro ciyaaraha qaarkood lagama qayb galo waxa taasna waxa keenaysa dhaqaale la'aan iyo sponsor la'aan marka runtii wadamada hadda horumaray waxay ka hadleen structure-ka ay u dhisan yihiin iyo sida fanka ay u raise garayaan runtii waa arin aad iyo aad u fiican insha Allah waxaan rajeynayaa in fikradaas aan ku dabaqno maartay Afrika qasdan aan zoon kashanad ugu dambeyntii anagoo barnaamijkeena gabagaba soo gaarnay waxaan jeclaan lahaa sidee uu yahay xiriirka maartay adiga iyo xogayaha xiriirka badda koleyga Soomaaliyeed Saciid Faarax maadaama adiga aad xogayaha xiriirka badda koleyga aad soo martay xil badan kala duwan aad soo qabatay maxaase kula talin lahayd maadaama aad xilkan hore u soo haysay way aragnimo badanna aad leedahay horta aan kala qaado horta xiriirka aniga iyo xogayaha Saciid Faarax Saciid intaan xilka loo dhiibin runtii waa wada xiriir jirnay cilaaqad wanaagsan ayaa naga dhaxeeyay waxaan aaminsanahay markii xilkii loo magacaabay in marka runtii macna waqti wuxuu ahaa aniga aan dhihi karo khilaafkii marka aniga xiriirka naga dhaxeeyay iyo goos iyo wixii taas ay marka waxay dhalisay in dadka si kale u arkaan in xiriirkiin uu xumaanayo balse laakiin mugdigaasi waxa macna waxa dhacday markii xilka asiga loo magacaabay isaga la socono macallin Bruno iyo Sheekha oo marka ayaga ahaa macallimiintii iyo xogeynta hore wixii dhacay dartiis maartay iyo ninka marka la soo magacaabay marka iscasileen oo isku waqti ahaa marka waxba mugdisi dad baa marka wax ka faa'iideystay oo marka uu arkay in waxaan ay tahay macna gurubaysi taas marka waxay dhalisay in marka aniga Saciid naloo arko dad maartay iska soo horjeedo laakiin ma jirto Saciid runtii shaqo fiican buu qabtay runtiina aniga waxaan jeclahay qofka bani'aadamka wuxuu qabtay in lagu taageero wax maana managa dhaxin karo Saciid waa diyaaran u tahay wax walba wax qabad ah dalka Saciid aniga markaan tagay Canada oo wada hadalnay waan u sheegay tad macna su'aasha hadda ay weydiisay armiyi ka dhacay maaragtay Kampala ciyaari inta City-ga waxa mugdi way jireen oo runtii si kale uu arkay wixii maaragtay waa ka wada hadalnay hadda markaan macnaha qaahir soo kale waa ka wada hadalnay macnaha Saciid waa nin mas'uul ah xiriirka u shaqeeyo aniga nin waxaan Afrika ku jiro oo marka laba xil maartay balse wada shaqeyn in idinka dhaxayso maadaama adigana aad khilaaf oo naga dhaxin ka Saciid ma laha runtii waxaan aan dhihi lahaa talahaan u siin lahaa waan u sheegay aniga uu marka iga baahan yahay nin walaas ayaan ahay diyaarado hadda dhibaatadii hadda dhacday runtii Saciid markuu meesha tagay hadda ciyaar ayaa jiro oo ka dhacaya ciyaaraha zoonka shanaad oo ka dhacayo maxaa la dhahaa Tanzania runtii Saciid shirkii uu ka sheegay Soomaaliya in runtii u baahan tahay taageero in lagu taageero xagga dhaqaalaha inkastoo aan had koorna u sheegay ayaga macnaha arrintan oo kale runtii taas macnaha waxaan ku sheegayaa waxa dhacday shirkii markii aan wada fadhiisanay waqtigan ahaa shirkii markaa wada fadhiisanay zoonka shanaad iyo xogayihii waxa dhacday in maadaama Soomaaliya ay weydiisatay dhaqaalo in maart lagu taageero in xogayaha marka hadalka marka meesha uu ku yiri oo kamid ahaa in Soomaaliya ayaga ay jecel yihiin inay taageeraan Soomaaliya dhawaatada macnaha haysta ay ka duwantaa dhawaatooyinka marka ka jira zoonka shanaad hase ahaatee wuxuu yiri waxaan isku daynaa Soomaaliya ama kor ku taageerno dhaqaale aan siino
oo lacagna aan maarata aan siinay hadda kahor in ciyaaraha uga qayb galaan ciyaarihiina maarata ay ka baaqdeen lacagtiina meel ay maarata aada aan la aqoon macnaha runtii taas waxaa ka dareemi kartaa dhibaatada maarata markaa ka dhacday macnaha ay markaas caqabadii dhacday ay create gareysay goos inay effect weyn ku sameysay xataa waxqabadkii marka la siin lahaa xiriirka Soomaaliya aniga inoo sicid asiga faaraas inuusan ku jirin marka uusan ahayn asiga xoqeye runtii waxa meesha ka dhacay uusan waxba ka hayn laakiin effect ay wax ku sameysay sida marka Soomaaliya loo caawiyo Masar baana runtii aad iyo aad baad u mahadsan tahay ugu dambeyntii adoo ka faa'iideysanayso fursadan qaaliga ah maadaama aad tahay nin muddo badan isboortiga Soomaaliyeed wax u soo qabtay runtiina arrimo badan maadaama hadda goos in la joogin goosna uu yahay dad ku hoolan aan ognahay hadda xiriirada kala duwan ee Soomaaliya ka jiro waan ognahay wacyiga iyo waqtiga lagu shaqeeyo maadaama adna qaybka la soo shaqeysay runtii tan kale ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan waxa ku amaantaa wax qabadkii inta aad joogtay ugu dambeyntii maxaad ummadda Soomaaliyeed u soo jeedin lahayd ee ku daawanaysa gaar ahaan haweenta isboortiga والله طريقته waxaan dhahay lahaa qofka markuu wax sameeyo markuu inuu daacad u sameeyo I believe Somali in dad badan oo maarta aqoon-yahano ah oo hadii la firiyo maamulka iyo isboortiga macnaha yaqaanaya jira ciyaartooy badan way jiraan oo adduunka macnaha ku nool runtii maanta magaca Soomaali ma tali kara aniga waxaan dhihi lahaa in daacad loo shaqeeyo Soomaalnimo loo shaqeeyo la iska dhaafo maarta gurubeysiga maarta dadka create gareenayo in is walaashadaan waxa la tahay Afrika marka tagnay waxyaalaha ka jiro inta dareemi kara dhibaatooyinka in la iska iloobo sports wax loo qabto dhalinyaradeena waddanka ku baaba'san iyo kuwa gudaha joogo inaan ugu faa'iideyno opportunity-ga ay haystaan inaan maarta create gareeno bulsho Soomaaliyeed oo caafimaad qabta oo marka magaca Soomaaliya marka noo matali kara adigana mar walba waxaad diyaar u tahay saan ogsoonahay aniga saan ku sheegay aniga waddankan aan ka shaqeeyaa wada shaqeyso waxaan u ahay in qofkii wax iga baahda qofkii tale iga baahda qofkii xoog iga baahda wax walba inaan diyaar u ahay waddankay lagu horumarinayo mar walba anytime anywhere aad baad u mahadsantahay sida daacadnimada aad nagu warantay Masar baana boqoshadaadana aad iyo aad baa maaragtay kaaga mahad celinayna iyo waqtiga qaaliga aad siisay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa engineer baana Cabdalla Cali oo kamid ahaa madaxdii soo martay xiriirka kubadda kolayga Soomaaliyeed asagoo hore u soo ahaa gudoomiye ku-xigeenka saddexaad xiriirka kubadda kolayga marna ahaa xogayaha xiriirka kubadda kolayga ee Soomaaliyeed haddana wuxuu yahay Masar baana FIBA Africa qaybta suuqgeynta waxa barnaamijka ciyaaraha xagga farsamada ila qaabeynayay Amir igala lahaada Calaar waxa isku soo dibiriday Socoto asaga oo cameraman-ka ah Aweesyare waxa idin daadihinay anigoo ah wiish inta aan barnaamijkan oo kale ka isugu imaan doono marka kan ka xiga waxaan idin leenahay dhamaantiin ama dhamaanteen Soomaaliya nabad lagu dhiso aan lagu noqday